soo wada xabta dhamaantiin muuqaalkan insha Allah maanta waxaynu ku dul istaageynaa sidee ayaa loo bilaabaa online education business. I think marar badan waad aragteen adduunyada hadda isbedel aad weyn baa dhacay. Aqoontii jaamacadka lagu hayn jiray ama aqoontii iskuulada caadiga lagu hayn jiray hoos bay u dhacday. Marka waxa sare u kacay aqoontii online ka jirtay. Marka aqoonta online ku jirta waxay sameysay fursado waaweyn oo aad ku sameyn karaysid online income aad ku sameyn karaysid. And I'm one of the people who aan ka sameeya online education business. Muuqaalkiina waxaynu ku dul istaagi doonaa sidee ayaad adiguna u bilaabi karaysaa online education business ku sameey bishii $1,000 ilaa $10,000. Dhici karaysa barkiin inaad lacag dul fadhidaan ama aqoon dul fadhidaan ama xirfado dul fadhidaan. Muuqaalo horan soo sameeyay baa jirta. Laakiin se adan income ka sameeyeen insha Allah marka hadad inuun xirfad leedahay ama aqoon leedahay ama xirfad leedahay insha Allah dilaa muuqaalkan dhamaadkiisa waxaad kala tagi doontaa sidee ayaad aqoontaada aad business aad ugu bedeli karaysaa. Sabab ayay tahay hadaba walaalayaal inaan business-kan aad u bilowdid digital product ama inaad online education business waxa uu ahaa sanadkii 2020 $180 bilyan ayuu ahaa 2020 hadda 2025 aynu joogno waa $325 bilyan sida la saadaalinayo 2030 marka la gaarana 800 iyo wuxuu noqon doonaa $40 bilyan marka lacagta inta la eeg ee qulqul wareeg lacageeda inta dhex maraysa ee online ka dhex maraysa waa online education business weeyaan ama digital product ka noqoto course ha noqdo challenge ha noqdo consultant ha noqdo waa industry si waalan ku socota oo Allah musta'an sare u sareysa. So hadda waxa fudud markaas inaad Allah musta'an income-ka inta la sameyn kartid aad adiguna qaybtaada yar ka qaadan kartid. Waxa su'aasha ugu horeysa isweydiin waxa weeyaan waa maxay online education business ama waa maxay digital products. Maanta waxa jirta xirfad aad leedahay. Anu hadda xirfad baa jirtaan leeyahay macalinimo la yiraahdo oo dadka wax bari karayo. I can xirfadan leeyahay marketing la yiraahdo. xirfad ban leeyahay la yiraahdo funnel building iyo soo sameeyo. xirfad ban leeyahay offer creation la yiraahdo. xirfad ban leeyahay nacam waxaas oo xirfadan leeyahay ama xirfado iyo samaysan video kasta looga hadlan leeyahay waxaas oo xirfado samaysan maanta waa xirfado high value ama high demand oo suuqa looga baahan dadku ay u baahan xirfadahaas aad leedahay waxay ku noqon karaan income hadaad macallimad tahay gabadh ardaydeeda kamid ah Allahumma sa'ano Djibouti joogta maalin dhaw ii sheegay lahayd macallimad baan ahay xirfadaas baan leeyahay ciyaalka wax bara marka qaab unique ayaan develop garay online education business ma la sameyn marka there is thousands and hundreds of people Allahumma sa'an maanta lacag aad u fiican ka sameynaya oo online education business lacag sameynaya marka insha Allah dilaa muuqaalkeena waxa ku dul istaagnaa sidee ayaad adiguna ku sameyn karaysaa. Arinka ugu horeysa sameynaysa waxa weeyaan inaad niche kaaga dooratid. Niche waxa la yiraahdaa waa specific people or specific problem haysta oo specific solution aad u haysid. Okay hadda tusaale ahaan ka soo qaad niche marka la leeyahay hadda dad baa jira challenge haysto Allahumma sa'an ama dhibaato haysto oo raba inay ka baxaan Allah musta'an bartaan xirfado si ay shaqaalanimo uga baxaan waa pain iyo dhibaato haysta. dad kale jira Allah musta'an oo raba inay luqadda Ingiriiska bartaan si ay online xirfado uga bartaan waa pain iyo dhibaato haysta. dad kale ayaa jira oo raba inay bartaan gitaarka. dad baa jira Allah musta'an inay bartaan nacam waxaas oo dhan oo maanta xirfad laga baranayo ama aqoon ha noqoto ama hobby ha noqoto waxaas oo dhan waa baahi badan oo ka jirta qofka garanaysa cuntada loo sameeyo qofka garanay nacam marka digital product hadii aad physical product hadda samaysid oo product kan oo kala samaysid in China lagaaga soo diro ama Allah musta'an qaabka loogu soo diro challenge bay noqonaysaa. Marka kan waxa weeyaan aqoontaadii aad lahayd ayaad package gareynaysaa. Package-ka waxaad ka dhigi kartaa ama course baad ka dhigi kartaa ama challenge baad ka dhigi kartaa ama e-book baad ka dhigi kartaa ama waxaad ka dhigi kartaa consultant baad ka dhigi kartaa ama coaching baad ka dhigi karaysaa. Aqoontaadaas marka waxay ku noqonaysaa income lacag ku samaysa oo ka samaysid ay ku noqonaysaa. Marka waxay noqonaysaa inaad niche dooratid. Hadda anu waxba ku fiicanay Soomaa dad baa jira raba inay bartaan social media marketing agency sida loo sameeyo marketingka sida social media loo sameeyo xirfadeedii aqoonteedii baan leeyahay wax badan oo value badan oo baan soo create garay YouTube-ka in badan baan muuqaalo soo sameynay marka xirfadaas aan leeyahay in dadka la wadaagayo waa offer dadka qaadanayaan on kula wadaagayo Allah musta'an aqoonteedii waxay gaan lahaa marka inaan niche dooratid niche-kaas qasab ma Allah musta'an isku waday kan qof walba wax ku fiican yahay mid baa maybe gawaarida soo hagaajiyo ku fiican mid baa telefoonada loo hagaajiyo ku fiican software-kayga Allah musta'an miftah.io dad aad u badan baa Allah musta'an qof baa xinaha ku fiican qof baa kan kale ku fiican marka qof walba wax uu jirto Allah musta'an uu ku fiican yahay marka waxaad ku fiican tahay qaad and then what package gareynaysaa markaad mushkiladda soo ogaatid marka ugu horeysa waxa la yiraahdaa inaad soo ogaatid dadka u serve gareynaysid qofka u serve gareynaysid ama qofka wax la wadaagaysid waa niche ugu muhiimsan inta badan waxa la yiraahdaa waliba dadka lacagta haysta okay imiga kale waxa la oran kartaa
dadka 30 ka weyn ama 40 ka weyn ayaan barayaa sida AI da u isticmaali lahaydeen ama waxaad oran kartaa businessyada ayaan barayaa Allah musta'an sida ay u sameeysan lahayn Allah musta'an marketing okay nacam so many ways baa jirta oo dadka ugu adeegi karaysid ama dadka aad la wadaagi karaysid waxaad Allah musta'an xirfadan iyo aqoontan aad leedahay haddii aan garaneyn muddo 2 week 3 week aad qaadan kartaa xirfadaad ku baran kartaa aad ku master gareyn kartaa and dadka la wadaagi kartaa and that's way Allah musta'an marka hore maxaan niri niche kaaga soo yar niche waa dad gaar ah dadka waxaad baraysid Allah musta'an video editing aad ku fiican tahay graphic design aad ku fiican tahay anything xirfadaad ku fiican tahay waa wax adiga income iyo dakhli ku sameeynaya waa wax Allah musta'an so many ways Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sameyn karaa marka dadkii soo heshid waxaad u baahan tahay inaad offer created offer waa art offer ka si loo create gareem af Soomaali hadan igu qeexay offer inaan gareem ba macquul offer ku waa waxa dadka ka iibsid imika kuwa team ka iibiyo offer ku waa in team equipment ka iibinayaan ama service ka ku qabanayaan qofka Allah subhanahu wa ta'ala ka jara offer kiisa waa inuu timaa ku jaray qofka dukaanka adeeg aad ka soo iibsatid waa inuu adeega ka iibinayo marka qof walba waxba jirta suuq uu keenayo uu iibinayo marka offerkaaga adiguna waa inaad offer samaysataa oo dadka aad u bandhigtid oo tirahdid okay mushkiladda man ka xalinaya saniysan ma ku siinaya xilligan bigaarisa marka offerka qaab baa jirta loo create gareey offerka dooranaysa marka ha noqdo niche ka dooranaysa ama waxa dooranaysid ha noqoto offer irresistible ama qofku uu diidi kareen okay tusaale ahaan Allah musta'an ka soo qaad qof baa jira hadda caqabad baa haysata website buu rabaa ama wuxuu u baahan yahay Allah musta'an wuxuu u baahan yahay inuu barto AI do kale ayuu u baahan yahay inuu barto handan offerkaas aad siinaysid baraysid offer mad kaliya gareysa marka waxaad oranaysaa waxaan muddo 4 week kugu bari doonaa sida AI da u isticmaali lahayd sida productivity-gaaga sare ugu qaadi lahayd okay dad niche dooratid the more niche dooratid the more ay ku fiican tahay imika anigoo kale waxyaabaan ugu baahida badan oo maxay waxaad oran kartaa integration baan ku samayn karaya copyright baan ku qoraya Allah musta'an landing page-kaaga wax ka saxaya lacam there is so many things baa jirta oo maanta service ugu samayn karaysid ama aad ugu isticmaali karaysid marka waxaad samayn karaysaa mid ticket iyo low ticket iyo high ticket waxa la yiraahdaa jirta low ticketku waa inta $10 iyo u dhaxaysa ilaa $50 low ticket bal qofkii kama fikiraya Allah ta'ala ka iibsado that's okay it could be Allah ta'ala PDF buu noqon karaya or Allah ta'ala Google Sheet baad ka dhigi kartaa or something like that baad Allah ta'ala ka dhigi kartaa ama course baad ka dhigi kartaa oo $100 $200 ayaad ka dhigi kartaa calaa qof aad la geli kartid Zoom ama group coaching baad samayn karaysaa oo Zoom baad la geli karaysaa high ticket basna jira high ticket kaas wuxuu noqonayaa qofkii inaad one on one coach la samaysid one on one coaching aad la samaysid hadoo kale qof baa raba wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa koriyo ama content anigu hadda business ka Allah musta'an waxa jirta dad waaweyn oo CEOs oo business waaweyn iska leh on accountability wahay on Allah musta'an accountability kula hay business ko xagay marinayaan on accountability kula hay Allah musta'an nimo culus Allah musta'an wadankeeni jooga oo business waaweyn waxa jirta Allah musta'an accountability kula hay they pay me well $1,000 iyo in ka badan ay beer karayaan marka taas baa la yiraahdaa high ticket marka high ticket ku the more uu qofku lacag haysto the more adigana ay ku fiican tahay ana ku fudud tahay inaad Allah musta'an aad kaybisid marka inaad dadka lacag haysid baa waliba ugu fiican dadka lacag haysta ama awoodi karaya offerkaaga ayaa ugu fiican inta marka sameeysid hadaba waxoogaa technical aad u baahan tahay idin wada lamayn maayo laakiin waxa jirta software weyn on hadda aan sameynay oo la yiraahdo Miftah Systems oo waxaan oo dhan aad u isticmaali karaysid inkastoo na public ahayn oo dad gaar ah Allah musta'an kula shaqeyno if you want to make Allah musta'an dad si fiican rabtiin oo sameeysid wax badan sameeysid ama doonaysid Allah musta'an in laga caawiyo inaad funnel lagu la sameeyo ama sida aqoontaada u package gareyn lahayd offerkaaga u sameyn lahayd marketingka u sameyn lahayd that entire thing Allah musta'an dad u baahan tahay team baa jira aan one on one ula shaqeyno so offerkaaga kula sameynaa marketing baan kula dejinaa system baan kula dejinaa wixii dhan baa Allah musta'an kula dejinaa marka qaabka u sameeysid hadan marketing baa sameynaysaa Facebook xayisiis baa sameynaysaa Facebook ads baa sameynaysaa hadan ads ka marka sameeysid launch gareynaysaa hadan marka launch gareysid you will make money marka sida u shaqeyso asaas hadan doonaysid content bad create gareyn kartaa oo content creator bad noqon kartaa dita content creator marka noqotid adiga traffic-gaaga iyo dadka Allah musta'an ayaad ku helaysaa so that's how it work knowledge to profit aqoontaada sida ugu rogi kartid Allah musta'an $1,000 ilaa $10,000 bishii inta u dhaxaysa aqoontaada income uga sameyn karaysid I think inaas baad lahaa inaas baa ugu muhiimsanaa muuqaalo badan oo kuwa knowledge to profit inshallah dilaa waan soo badin doonaa inshallah dilaa hiraado hadda Mareykan joogtid waxaan qaban doonaa kulan la yiraahdo Baraka Business Expo oo carwo ganacsiyad weyn oo muslimiinta ku nool wadankan Mareykanka oo dhan soo keenayno you will be one of them
الله مستعان mid ka mid ah noqon karta business aad leedahay Minnesota joogtid ama gaarkayga insha Allah hadii la yiraahdo waa inoo 5 bisha October insha Allah hadii la yiraahdo kulankaas baan qaban doonaa naga soo qayb gali kartaa bariyahan oo kala raagnay insha Allah hadii la muuqaaladeeni sideen ay nagu soo noqon doonaan dhamaantiin waxaan u baahanahay qofna dhiiri galiya ina challenge kareeya inagu taageero waxyaabaha aynu rabno hadii aad adigu qofka weydid adigu qof u noqo hadii aad qofka weydid adigu gaar ahaan naftaada u noqo inahaas bas la muuqaalkan way ugu muhiimsanaayeen aad iyo aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal insha Allah hadii aad doonaysid inaad nala soo xidhiidhid linkiga xagga jira ayaad nala soo xidhiidhi kartaa see you soon